tobanka November ayaa loo asteeyay maalinta xuquuqul insaanka waxaana maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ka dhacday xaflad looga dabaaldegay maalinta xuquuqul insaanka. Xafladan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay ururada haweenka qaybahooda kala duwan, mas'uuliin iyo marti sharaf kale. sidoo kale waxaa ka soo qayb galay qaar ka tirsan agaasimayaasha wasaaradaha kala duwan ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo taliyaha qaybta ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. xafladan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ugu horreyn goobtaasi ka hadlay kulankana daafuray agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Yuusuf Abdiqaadir Maxamed isagoona faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha si adag ay diiradda u saari doonto wasaaradda haweenka. سلام كدب وزارة هوانك والإنسان كوفر قلبت وعاد فرحتين وأمانتا إن أبغى سوق كشان برنامج كان مع دبلتي كان أب كوينا ولو بحصل معلنتا أبغى الإنسان كأدوك معلنتا والمعلن عالمية ولا بحصل دنيا قيمة هذا كله دوم شد قارضات أدوك على دور دبلتي كان وجد كله دبلتي وجد كوينا ناقم تمارنتا Human Rights Day waxay tahay in lagu ilaaliyo xuquuqda uu leeyahay ama xaq uu leeyahay ibanaha wuxuu noqon karaa caruur wuxuu noqon karaa haween wuxuu noqon karaa naafe wuxuu noqon karaa qof xabsi ku jiro xaran haddaan kasoo qaado tusaalahaan wasaaraddu waxay ka shaqeysaa afartaas tiirood ay dikirsan tahay ugu horeyso caruurta ee ku xigaan haweenka naafada iyo in la ilaaliyo guud ahaan xuquuqda insaanka tusaalahaan caruurta maxay xaq u leeyihiin caruurtu way xaq u leeyihiin diiniyan marka loo fiiriyo way xaq u leeyihiin inay helaan waxbarasho inay helaan caruurtu way xaq u leeyihiin inay helaan caafimaad inay helaan caruurtu way xaq u leeyihiin inay helaan daryeel inay helaan caruurtu xaq uma lahan inay noqdaan darbijiif caruurtu xaq uma lahan inay noqdaan askar xaq uma lahan wasaaraddu mar walba way ka shaqeysaa mashruucyo badan oo ku saabsan caruurtana hadduu ilaahay masuuntiga aan rajeynayna inay wax badan ay ka qabato sidoo kale naafada may xaq u leeyihiin naafada way xaq u leeyihiin inay u noolaadaan sida citizenka ama muwaadinka Koonfur Galbeed ama hadduu ahay Soomaaliya siday u nool yihiin waa inay ka qayb ahaadaan shaqaalaha la qaato wasaaradda loo qaato hay'adaha loo qaato waa inay xuquuq la mid ah xuquuqda qofka dhameystiran xubnihiisa inay lahaadaan haweenku way xaq u leeyihiin inay helaan saamiga ay ku leeyihiin awoodaha dowliga ah ee u ogashahay diinta islaamka ee u ogashahay sharciga Soomaaliya isku dastuurka ugu horeeyo sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay qaar ka tirsan mas'uuliyiinta iyo marti sharaftii ka soo qayb gashay xafladaas ayagoona khudbado kala duwan goobta ka soo jeediyay waxayna sheegeen in wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay diiradda ay saarayso sidii loo horumarin lahaa xuquuqda haweenka. subhanahu wa ta'ala iyo hor ilaahay ninka jiday waa mayda faasla mataabtaan way in qof walba bulshada beelisku ku jara inuu si ilaaliyo xuquuqda insaanka bani aadamka meel kasta qaybta isku jara bulshada adeego inuu si ilaaliyo xuquuqdiyo runtii meel raasana dadka bulshada dhanba kaalana ugu jara kaalanta aad ku jirto bulshada adanka adeegas dadka adeegas inaad ka adeegto inaad ilaalido xuquuqdiyo markaas meel raasana la helay bulsho hirin oo wada fiyaw oo maskax ahaan iyo jism ahaan fiyaw iyo la helay laakiin haddii aad meel raasana maalinta bani aadanka mise aadanaha mise human right-ka walibana maarneedii la aasaasay 1948 macnisha may buu ahaa inta badan la walba dadka fadhi may buu ahaa eedaydan fahmi karo haddii xuquuqul aadanaha walku sheegi lera may buu ahaa qof walba oo bani aadan nool xuquuqa leey xuquuqis may buu ahaa waliba baahanta inay oo maarneedii loon walba hela mise xuquuqis lahay qaabka ku dhulta malay hela insha Allah lan walba dadka fadhi haddii aan ku qaado meel kala baan in baan lan walba dirisa leeyma deriska kii ka hoobada xuquuqdiisa ilaalada may buu ahaa mayba lamidata aadanaha oo dhan baynaad xuquuqdiisa ilaalada lamidata
marka insha Allah geekatan ونسرنا مسمار نادي ونحسها مالوين أو مارك نادي أمباهم إني أنا الحسا إن شاء الله المعود ما يبغى ديتا ولا يوشك دكتا إن بدل ما يبغى حقوقه لانك بنياتن كأسلوب بس إنسان كلي لانويل وقفل كالليدا يوم ولا هذا يبدو إنك شغل deegaanada koonfur galbeed khaasatan magaalada Baydhabo wali faday hal aran oo kuladadaan fado ee weynta bulshada reer koonfur galbeed taasoo jilaan qarqumada kabta hoosew anaan afku ka dhawaay media ay suuqayna boo qaab dadari laakiin media ay hoosur dartee kalabadan ee injad yaraw dadku mudooyinka suwaad dartee warkoos me gadeedo لكن ولله رئيس ومالي والبلد مدلر ورقم الباس إن شاء الله ولي جيلا قيبتو تردان كي دي سوالون البطر ولي با تردان كي تدك مكلو قادر اليامين مدلو قادر أيوة بلسيدي تنقيدين كي داو ولي فضانا أنا اللي أنا الشخصي قرابة شخصي فقان هاي أنا لانكاس سكومدي لانكاس دوي لانكاس لنكسيها هاتا ويو آخر أدينا كابرك ليلي كي بسونا كابرك ليلي كي إن شاء الله بدي سودا ما نقول بن ولا بسوي أنا نملو تاسولي فضاي أنا بدي كونا ولا كلا وزارة ولا ميرا وزيرة مقام لها شقة إلى مالي لها صباح كستكون مشغولة وزيرة إلى هوايك دمر كان مسيح دمر كان ميساندي حقوق العرور تانا دمر كان دفاعي محسنت مروة حجرو مروة حجرتو موضان وزير فايسو آلا ومع صنطة هاي ووزير الدكالية أنك قبل كشبيرة هوسي حقوق قبلها كل كسو صارتواي مدن وزير آلا كاقبها العلينا يا حفلة maanta aan ka soo qayb galay gabagabadii waxaa goobtaasi ka hadlay xafladana soo xiray taliyaha qaybta booliska maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Amiin Madaruur isagoona haweenka iyo bulshada qaybaha kala duwan ka codsaday in ay si adag ay ula shaqeeyaan booliska ka howlgala guud ahaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka لكن بوست إلى أولين أفضل لكن هو هنوص أولين أفضل همين كيو باتر أو لكن هدرامي تبعونا كده أنتي محتاج شواذي كانوا أدونا نبريز إشي ما يصير بوست دانه نبتدي تنيجي شقيتا نبتدي هو بدنا ولا تقول شيئا ما لنا أو نبتدي يلا ولا تجيب كم نيشاني جواتنا نيشاني أو وإذا بدأي لكاس يدوس روج ولا يحق له ولا يبشرنا وتيسينا لوجا تنو هيلو أمان كبيرة يسيب لوجا على القطع يسيب لوجا على القطع لكن ساعتها فوفة كي شكام با كي ميركلا ما ناكي لكن itu kuar hai jibru ho jibru ada tu tak lewat yang kemana mai lepas ni ولا إبادة هو الأرتان والمك فيني أنا على يجد وأنا على ديره ما أنتي على شيء ده أم في شوطي هذا ما كان شيء أكان كلام وايد بالله وايد في منصين الشقي أدي إنه البوليس وافق علينا أو حكومة لانغول بمواد حكومة سليم وتقول كيرا لان كاس جديد سليم وتقول كيرا ما نقول بفضل منصب لان ديجا مده ويقول جد عليه الكاي باركو كراكو مده جد كو بالكاي اللي يشجع بريتي كم كان ما يشجع يقول عليه ما يشجع يقول لكن جد هكذا هو يشجع باركو لاكيو كوي يشجع ويسيب بغي ويقول هذا بيدو أنا ما بين الرئيس أنا ما هم كساسة أنا ما يسام راسة هم تنهض بحارم ولا كم يدري ولا يشوف لكن أقول جيكوس تطير أول إنسان سوا كانوا ما يبغى كان تأكيد بالله وأنا أريد أن يلا دوبيا أريد أن يلا دوبي والله سكاني جوتي إلى نامو كتومي wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya
ayaa waxa ay si adag ay diiradda ay u saari doontaa horumarinta xuquuqul insaanka iyadoona si adag ay diiradda ay u saari doonto xuquuqda haweenka ee guud ahaanba deegaanada Koonfur Galbeed. Ibraahim Macalimo, Raadiyaha TV-ga Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug, magaalada Baydhabo.